markii shilka galaysi xagee ku sii jeed xagee u socotay waxaan ku socday inaan soo qaado eedadeeda kadibna aan geeyo hospitalka Leeuwarden kadibna aan u sii cararay inaan xerada Olombikada ee Holland oo aan ku almiteen halkaas nasiib daro waxaa dhacday inaan adiga hospitalka la geeyo marka hospitalkii adiga ee u qaaday in adiga maanta loo geeyo marka meeshaasaan ku socday magana sida dad badan oo taageerayaashaada asxaabtaada laga yaabo familkaaga waxaa jira inay ka arkeen website-yada sawirkaaga adoo shil galay baabuurkaaga burburay marka anaguna saacaw ka aragnay cashada noo sameysay iyo qaabka noo soo dhaweysay waa laba aad u kala fog waay muddo gaaban khamiistii ilaa axadii in caafimaadkaaga uu soo fiicnaaday in xarinta xogaa ka bogsootay marka dadkaas ehelada ah asxaabta ah taageerayaashaada maxaa u marsiin lahayd TV-ga Soomaali oo asxaabteeda eheladeeda iyo fankeyga dhamaan waxaan u sheegaa inaan caafimaad qabo ay jug yar kaliya i gaartay oo jugtaasna aan ka qaaday madax xanuun iyo murqo xanuun kaliya laakiin waxaan ogaaday maanta inay jiraan dad fara badan oo Soomaaliyeed oo dadkayga ah inay aad i jeceliin sida ay igu walwaleen inkastoo ay u ekeed news naxdin leh oo dadka dhan ay ka wada naxeen macnaa malaha waxaa laga yaabaa sawirka markaas la soo qaatay inuu u ekaay sawir nin dhaawac aad u culus gaaray laakiin alxamdulilah hadda waa fiicanahay marka muddo laba week kaliya aan nasanaa kadibna waxaan rajaynayaa inaan bilaabo almiitadeedii hadduu la yiraahdo